boqor cismaan aw maxamuud buurmadow oo ka mid ah madax dhaqameedka waaweyn ee Somaliland ayaa waxa uu sheegay inaanay waqti xaadirkan suurtagal noqonin inuu iscasilo Cabdirashiid Riyaraac oo qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo salaadiinta dalku ay ku baaqayeen inuu iscasilo. boqor cismaan aw maxamuud buurmadow oo u warramay Bulsha TV ayaa waxa uu cadeeyay inaanay dhexdhexaadin ka gali karin madaxweyne ku-xigeenadii hore iyo madasha wada tashigo xaaladda ismariwaaga ee u dhaxaysa xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani. run ahaantii bariyaha kan uma aan badnayn xagga saxaafadda waxaana aad u jeclaa inaan ka gaabiyo oo aanan bariyaha kan ka hadlin haba yaraatee arrimaha siyaasadda, laakiin maanta xaaladda dalku marayo way kalifaysaa inaan si cad uga hadalno taabanno dalka arrinkiisuna wuxuu u baahan yahay in maanta si fiican oo mugle looga hadlo. run ahaantii arrinka kan xisbiga waddani uu kaga dhawaaqay mudaharaadka de way muuqataayoo mudaharaadkii sidii wakhtigii mucaaradka loo heelanaa ee la raaci jiray hadalladu keena way ka duwantay. waxaadna aan odhan karaa sababta keentay inay fahmaan xisbiyada mucaaradku inaan loo dhaganuglaanin arrinta ay ka hadlayaan inay fahmaan bay ku fiicnay. waxaan aad iyo aad ula yaabay labada guddoomiye ee labada xisbi ee mucaaradka ah siday hadalka u dhigaan weeyaane qaabkii ay u wajaheen soo xulistii komishinku wuxuu ahaa qaab ay ummadda Somaliland oo dhani ay ka bixisay dareen aad iyo aad ay u dhibsadeen. waxaa la filayey maanta doorkii xisbiyada mucaaradka ay active ka ahaan lahaayeen ama dadku si caadifadaysan ay u taageeri lahaayeen ayaa maanta la filayey. laakiin magacaabistii ay komishinka labada guddoomiye soo magacaabeen ee mid waliba uu soo magacaabay ardaagiisii hoose, cabdiraxmaan cirran uu soo xulay reerkiisii hoose, faysallo uu soo xulay reerkiisii hoose, labadii jeer ay xisbiyada ay soo xuleenna mid waliba uu soo xuleeyey ardaagiisa. dadku waxay filayeen inay dimuqraadiyaddu korto, inay ka koraan guddoomiyaasha xisbigu arrimaha reeraha. waxaa la yaab noqotay siaad la socotaan aniga beeshayda aan odayga u ahay Saleebaan Maxamuud Aadan oo guddoomiyaha guurtida ayaa ka soo jeeda. labadii xubnood uu soo xulay midna ma ay ahayn reerkiisa. hadduu laba habar jeclaa isna soo xuli lahaa iyana ay laba garxajisa soo xulaan Somaliland maanta way kala dhaqaaqi lahayd. laakiin isagoo qaranka u turaya wuxuu ka xishooday Saleebaan inuu soo xulo isagoo aan weliba xisbi u taagnayn, shacbigu inuu doorto aan doonayn maanta ee guddoomiye guurti ah. wuxuu ka xishooday inuu laba ardaagiisa soo xulo, weliba isagaa ku horreeyey. wuxuu soo xulay laba beelood oo aan beeshiisa ahayn buu soo xulay. runtii waana ku hambalyeennay. waxaan filayay guddoomiye Faysal ama guddoomiye Cirro inay maanta beelaha kale maadaama ay kolleyba beeshoodu ay taageerada ugu badan ay siiso inay beelaha kale ku kasbadaan. waxaa la yaab noqotay iyagoo beelahoodii soo xulay ninkii annaga beeshayada laga soo xulay. beeshayaduna dee waa la garanayaayoo Somaliland waxa weeyaan Ohio bay Maraykanku ku kala badiyaan baa leeyahay. dee beesha habar jecla miisaankeeda iyo codkeeda midna wax gorgortan gala maahay waa waxa lagu kala badiyaa xisbiyada. waxaanu filaynay inay u kala horreeyaan inay beeshayada soo xulaan maadaama ay beelahoodii haysteen. hadday hoos ugu noqdeen ardaayadoodii ninkii beeshayada laga soo xulay ee madaxweynuhu ka soo xulay inay soo farageliyaan oo ay weliba haddana yidhaahdaan mudaharaad baanu kaga baaqaynaa oo ay ka dagaalamaan oo Faysal oo kale arrinka inanta ee xisbiga madaxweynuhu soo xulay dib buu uga joogsaday. wuxuu labada gacmood Faysal isugu geeyey inuu ka dagaalamo Riyaraac. cirrana labada gacmood wuxuu isugu geeyey inuu ka dagaalamo Riyaraac. annaga ka beelahaan habar jecel qabyaaladda lama tuso,
loogama sanqariyo dareenkii xildhibaanada beesha habar jeclo ay ku taageereen way arki karayaan inay dareen ka qaataan bay ahayd habar jeclo maanta qaabkii doorashada dawladdu ay u dhacday in badanba oon anigu ku jiro ayaa xukuumadda ka gows qabsatay oo aan waxna ku darsanin bannaanka ka joogtay hase yahaasee faragelinta maantana waa laga yaabi lahaa hadday wax kale maanta ka hadlaan inay taageero badan oo beesha iyada ah ka heli lahaayeen mudaharaadka ka muuqan lahaayeen laakiin arrinka lagaga hadhay waxa weeyaan dee nin reerkiisii u tashaday inuu reer kale farageliyo oo siyaasadda wax ka doonaya waa arrin foolxumaa weeye waxaa kaloo masraxiyad maanta cajiiba dhigay ninka la yidhaahdo saaxiibkay faysal cali waraabe faysal cali waraabe madashan uu sheegaya isagaa sameeyey maskaxdii ka dambaysay buu ahaa wuxuu sameeyey markii siilaanyo lala dagaalamayey madashani waxa weeyaan waa madal ka kooban beelaha habarmagaado somalilanti kalena aanay ku jirin habar jeclana ku jirin markaa maanta inuu yidhaahdo haddii aan laba leeyahay waxa dhexdhexaadin gelaya madashii iyo xisbigayagii iyo ciro oo aan u aragno inay tahay madaxweyne muuse bixi in culays lagu saaro riya raac waa arrin runtii ah lucbad saqiir ah oo aan ciidana liqi kara haynin waxaan leenahay hadday bahashu reera tagnatana habarmagaadle dhexdhexaad ma noqonayso habar jeclo madasha waxba kuma leh labadan xisbina waxba kuma lihin riya raacna ma diidi karaan riya raac waa nin habar jeclaa miisaanku ku soo galana waa ka beeshiisuna way wadataa kuma kala qaybsana muuse bixi haddii cadaadis lagu saaruu riya raaca ka noqdo kama noqon karo baarlamaan ba ansixiyey cid ku qancin karaysa riya raaca uu isu soo casil oo u humbaalayn karaysa u hanjabi karaysa muuse culays ku saari karaysa ma jirto mowqafka reerka siyaasadda reerka codka reerka cid igaga daba hadlaysaa ma jirto anaa ka hadlaya riya raac waa xubin sharciyad ku fadhida baarlamanku ansixiyey dhaaratay halkaa taagan waxaan odhan lahaa walaalahayga dimuqraadiyad aynu haysanaa waa dimuqraadiyad labeeba maha tan caalamku ku shaqaysto oo kale bahal la jiifiyaano bannaana weeye bahal la rogrogo weeye beelaha darafyadu way aaminsan yihin wayna ka xishoodeen inaynu innagu kabaa isula soo gallo oo kale xishoon weyno oo isu hanjabno oo isu mudaharaadno yaa waa arrin aan suuroobayn anugu waxaan ku talin lahaa si odaytinimo leh ama macaan ku laqa ama qadhaadh ku laqa ama si xirfadaysan u qaata ama si cadhaysan u laqa sankaa idiin daloole ninka la yahdo riya raac cid beddelaysaana ma jirto waxaan odhan lahaa wakhti hayna ka luminina waddani xubintiisaa soo magacaabo xidxodashada beelaha ka mid baanu nahay haddii aan laba leeyahay ma diidanin weliba waxaanu ku baaqaynay shir aanu isugu nimaadno oo beelaha iskaga raalli gelinno qadafkii hore ee siyaasiyan dhacay waxyaalihii horena kala gaadhay inaannu isku boogadhayanno shir burcaa baa jiray arrinkaas faysal iyo u midaysan yihiin iyo ciro ee arrinta riya raaca faysal wuxuu yidhi qarankaa laga talinaya qaranku hadduu riya raac yahay yaa hadduu ku jabayo qaranku iyo hadduu ku kabmayo iyo hadduu isku raacayo cid ka noqon kartaa ma jirto dan baa reer guuraah waxaan leeyahay xubintiinna soo magacowda muuse biixina humbaallayska reeraha hadduu cid ku jiibsado ama u dhega nuglaado wakhtigii intaan la ansixin bay ahayd baarlamanku intaan ansixin bay ahayd maanta maaha anugu waxaan leeyahay nasiibkiina walaalayaal ka qaada shacbigana haddii aan laba leeyahy cid idinka nasiib rooni ma jirto riya raacna nin haddii aan laba leeyahay dhaartay weeye
waa nin xubin commissionkaa weeye beelnimada ma jeclin maanta inay qabyaaladin dhexdeenna ka bilaabanto ma jeclin haddii aan laba leeyahay in somalilan loo kala abtiriyo abtirsiyada ka daaya beelaynta ka daaya madasha iyo annagu faysal cali waraabe iyo ciro hadday baashu la qalloociyo habarmagaadlaannu aragnaa xubnana kuma lihin labadiinna xisbina idinkaa leh ama xambaara ama daadihiya codka beeshuna waa codka riyaa raac weeye ninkii beesha wax ka rabaa si cad waxaa la yidhi ama gudcur baa laga caddeeyaa hadalka ama gabolo yaa ama gudcur baa laga caddeeya waxa weeyaan annaga go'aankaygu waxa weeyaan go'aanka beeshu maadaama nin reer xisbiye aanay ku hadlayn oo aanay somalilan isku xawaashaynoo dimuqraadiya muuqanoo haddii aan laba leeyahay u yahay yaa waxaan hubaa xubinta uu soo magacaabay ciro xubin waddaniya oo actifa oo dibadda ka ololeynaysay oo la yaqaanay weeye faysal soo magacaabayna sanduuq kuma jirna mid waddaniya bay mid cida bay ahayd mid ololeynaysay bay ahayd mid la ogyahay bay ahayd yaa minagii reer caligeri baa isu askariyeyni buu yaa isu xisbiyeyn mayno laakiin boqor iyagu waxay ku doodayaan in cabdirashiid raac uu ka tirsanaan jiray xisbiga kulmiye isla markaasina ololihii uu qayb weyn ka lahaa aduu tahay maa diidantay kuwan kale la soo magacaabay mid aan ka waddanina waddani buu ololeynayey kana faysal wuxuu ololeynayey ucud buu ololeynayey anuu faysal bersonal saaxiib anu waan wada hadalla waxaan ku yidhi nin habar jeclaa keen tribkaa xisbiga aan wax isku darsanno wuxuu yidhi adeer reerkii igu tabcay yaa ee mar walba ila dhacayey ee ii ololeynayey baan keenayaa kii buu keenay maaha wax badheeraha cad baan ka hadlaynaa been anugu ku hadli mayno waxa weeyaan nin waliba waxa weeyaan run ahaantii cabdirashiid yaa waddani wuu ahaan jiray uu ka tegi yaa kulmiyana mar wuu ololeyey qof aanu cid u codaynin ma jirto qof aan cid somalilan u ololaynin ma jirto yaa faysal inankan uu keenay cid buu ahaa kan uu keenay cirana waxaa waddani buu ahaa active buu ahaa dhaqaaluu dibadda uga ururay annagaa isku deegaana annagaa isnaqaano marka waxa weeyaan waxaas wax alla wax ka cabbayaa ma jirto maanta waa xubin dhaarsan riyaraac baashu waxa weeyaan iyagaa reeraha u rogay waxa la awlalka ninka xumaynayaana wuxuu u rogaa baa la yidhi xagga feedhuhu sarraysiiyaa ka hagaaji
dhexdhexaadin ah oo muuqata oo Somaliland u dhan tahay oo Somaliland hadday isqabatana waxa weeye inay cid waliba ka muuqata talada cid waliba inteeda ku yeelata wax naafici karaya ma waxan cidda maanta wax dhexdhexaadinaysa Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Shiglan TV-ga caalamiga Bulsho Hargeysa.